dabeetana nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam wakhayru nnaasi anfacuhum linnaas dadka waxaa u khayr badan ka u nafciga badan ka u waxtar badan dadka waxaa u khayr badan ka u waxtar badan ee nabiga calayhi salaatu wasalaam baa mar kale isagoo jooga waxaa la keenay la sheegay nin dibqallooc qaniinay markii dibqalloocu qaniinay ayaa nin yimo wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisii oo naga qoladayadu waxbaanu tufnaaye dadkan dibqallooca wax lagu tufaanu naqaanaa ku akrinaaye ma ku akriyaa bal soo bandhig buu yidhi waxaanad akridaan muxuu yahay wixii buu sheegay dabeetana wuxuu nabigu yidhi ba'si kuma jiro tanaad sheegtay ee man istataaca minkum an yanfaca akhaa falyafcal ciddii awoodda walaalkii inuu wax taro ha yeela buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ha taro xadiidka saddexaad aan tilmaamaynaa wuxuu yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimi oo wuxuu ku yidhi yaa rasuula allahi ayu nnaasi axabu ila allah wa ayu alacmaali axabu ila allah dadka yaa alla u jecel yahay acmaashase maxaa ilaahay u jecel yahay nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkanu xasan ligayri uu sheekh alalbani ku sheegayo wuxuu nabigu yihi axabu nnaasi ila allahi anfacuhum linnaas dadka ilaahay wuxuu ugu jecel yahay kuwa dadka ugu waxtar badan acmaashana waxa loogu jecel yahay buu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam sururun tadkhiluhu calaa muslim qof muslima aad farxad geliso ka farxisid takshif canhu kurba dhib haysato aad ka faydid aw taqdi canhu daynan ama dayn lagu leeyo aad ka bixisid aw tatruda canhu juucan ama gaajo aad ka quudisid wala an amshiya maca akhin fi xaajatin axabu ilaya min an actakifa fi hada almasjidi shahra wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam inaan qof muslima si aan baahidiisa ula gudo raaco ayaan ka jecelahay masaajidkayga kan waa masjidu madiina inaan bil ku ictikaafo waxaan ka doorbidayaa buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qof muslima baahidiisa inaan gudo waman kadama gaydahu walow shaa an yumdiyahu amdaa malaa allahu qalbahu yowma alqiyaamati ridaa qofka cadhadiisa qarsada isagoo awoodi kara inuu guto guto kaana ilaahay qalbigiisa maalinta qiyaame raalli ahaanshiyuu ka buuxiyaa qofka walaalkii raaca ee xaajadiisa ilaa intuu uga gudayo raaca isagana maalinta qiyaame aanay bini aadamku sugmi karaynin baa ilaahay subxaanahu wa tacaala gomadiisa sugaa saddexdan xadiid aan akhriyey alfaadooda aan idin sharxay waxay wadaagaanoo sheegayaan qofka muslimkii inuu qof waxtara noqdo waxay sheegayaan acmaasha alla u jecel yahay inay tahay dadka kuu ilaahay ugu jecel yahay inuu yahay dadka ka ugu nafci badan nafcigaynu ka waramaynaa ama nafci adduunye ha noqdo ama nafci aakhira ha noqdo bini aadamka waxa ugu nafci badan ambiyadiiyo rususha waayo ilaahay baa wuxuu usoo dhibay waxay aadanaha ku badbaadin lahaayeen adduun iyo aakhiraba oo mar kastoo bini aadamku uu qalloocdo oo jidka saxdaa uu ka lumo waxaa lasoo dirayay rasuul ama nebi kaasoo loogu talagalay dadka inuu saxo oo noloshooda adduunyo wixii ka qaldamay inuu u toosiyo noloshooda aakhira wixii ka qalloocdayna inuu u toosiyo idan nafciga qofka muslimkaa laga rabo inuu yeeshaa waa nafci adduunyo iyo nafci aakhiro wixii uu tari karaba nafci aakhira u weyn oo ilaahay markuu dhaartay wuxuu yidhi walcasri ina alinsana lafii khusrin ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat watawaasaw bilxaqi watawaasaw bالsabr ilaahay intuu dhaartayba wuxuu ku dhaartay bini aadamku inuu khasaare ku sugan yihi waxaa ka soo reebay cidda aan khasaaraynini inay tahay dadka laga hela iimaan iyo camal saalixa
iyo xaq oo isfaraan iyo wixii dhib xaqa ka soo gaadha faritaankiisa oo ay ku sabraan cidda caynkaa samaysaa waa cidda khasaaraha ka badbaaday idan dadka waxa u anfac badan leh khasaaraha la hubo ciddii bini aadamka ka badbaadisa khasaaraha la hubo waa khasaaraha ilaahay uu ku dhaartay walcasri ina alinsaana lafii khusr ilaahay baa ku dhaartay subxaanahu wa tacaala haddaba waxaan leenahay dadku haddii qof waliba shaqada inta ku beegan uu qabto noloshu waa wax fudud oo la habayn karo haddii dadka inta ugu badani inta iska fadhiistaan dad gaara la yidhaahdo waxa qabtaan ummadaasi ma horumarto مثلا نبي محمد بركو جوغي عليه الصلاة والسلام صحابو الدين الشيخ مية اسكفر ديانو يدهدين دين نبي ما ماشي جوغا مايا إيانا ويسي شيغيين سيدا اوغين بين دمان تود شقا هيين دمان تود شقا دا قبتين مثلا أبي بكر عشرة المباشرين رقي هو وينان رقم إذا وحا كاني أبي بكر بس هو إسلامي ونبقى كان عليه الصلاة والسلام نبقى نوصي هرمري saxaabada nin waliba shaqada intuu garanayay buu qabta mid dagaal ka qayb gala mid hogaamiye dagaal noqda miya waliga kutubta xadiiska ku aragteen an Khalid bin Walid sama maydan maqal wuxuu ku caan bahay Khalid oo xadiis warinaya ma maqasheen an Khalid radiyallahu anhu oo la leeyahay lagama yaabo inaad aragto haddana cinda almuslimiin waa rajul macruufa عند المسلمين ده تاريخ ده ما أنت بني آدم ككليات استراتيجية ده عساكرت خطط كيسي بالغولي جوا حكم ده وحي ومدة وقبن كريه وغبطة كوي علم جبرته وحي ومدة وقبن كريه بقبته كوي تلقرني وحي ومدة مركا قف ولا ما مركا وكت تلقلين وحقبته ويقول يسته حديثه مثلا دين تفافين تأذى ترهدان أو هبل يا وهبل بمسؤول كأدي دين ضد أنت كلنا ويسويان ديني فافي مايسو او هبل انتو غاريا dadkii muslimiinta soo islaamayay markuu 13 nabiga la joogan buu baxay dabeetana soo qabaa'il dhan wado soo islaamiyo keenay dadka saymiga jooga 40 sanaad muslim ahayd waligaana qof maad keenin 40 sanaad muslim ahayd way adigu in xilkuba ku saaray baa rumaysnayn nabigu alayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu ku tilmaamaya dadka waxa u khayr badan dadka u nafciga badan leh u waxtarsan waxtarkaasi wax kasta oo bini aadamka la taraa waa waxtar hatta xayawaanka waxa la taro hatta xayawaanka xadiista waa ku aragteen qof dumaro la yiri ay waraabisay baa ilaahay ugu dambi dhaaf ay bay waxtartay dabeetana appreciation waa la qiray waxtarkeedii fashakara Allahu laha baa leeyahay ilaahay baa uga mahadnaqay eegay waraabisay